waxyaabaha aad loola yaabo ayaa ah adigoo lagu soo bandhigayo fursad oo wax badan kaga bedeli karta noloshaada oo haddana aadan ogolayn. waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid fursaddaasi maxay tahay, maxaana kuu diidaya inaad ka faa'iidaysatid. wax kale ma ahan ee waa waqtigaaga. waxaad isweydiisaa, waqtigaaga inta ugu badan maalintii maxaad ku bixisaa? sidaan wada ogsoonnahay, qof walba waxa uu haystaa 24 saacadood. haddaba isweydii 24 saacadood maxaad ku bixisaa? mise ogtahay waqtigaas inuu yahay cimrigaaga oo maalinba maalinta ka dambeyso sii gurmaya oo aan dib dambe kugu soo laaban doonin? waxyaabaha ugu badan ee waqtiga lagu lumiyo waa telefoonka. waxaa yaraaday akhriska ama akhrinta buugaagta. waxaa kaloo laga yaabaa inuu yaraado qorista buugaagta, ilaan dadka badankiis waxay ku mashquulsan yihiin aaladahan casriga ah. haddaba dadkii waqtigooda maareeyay sidee ayay u maareeyeen? haddii aad youtube-ka ka baartaanna waad heli kartaa nin sheekh cali aطanطaawi baa la dhihi jiray, sheekh cali aطanطaawi raxmatullaahi calayhi, ilaahay ha u naxariisto. wuxuu ahaa dadka meediyada ku baraarugsan iyadoon dadka media ayin jirin 1970skii baan ka hadlaya 80s ya, iyadoon waqtigaan social media ma jirto, youtube ma jiro, waxba ma jiraan ya. marka tv-ga, idaacadda, joornaalka, wixii media jiray markaas oo dhan wuxuu ku lahaa outlets, yani waxbuu ku lahaa. joornaalka waxbuu ku qori jiray ya, maqaalaad iyo majallaadka everyday. idaacadda barnaamij buu ku leeyahay, waa ka hadlaa. tv-ga waa ka soo muuqdaa, waa ka hadlaa, barnaamij buu ku leeyahay ya. saasoo ay tahay shaqooyin. marka wuxuu yidhi aniga waxaan ahay qaadiyuu dhahay, qaadi. subaxii maxkamaddaan aadaa ilaa duhurkii labada duhurnimo maxkamaddaan joogaa, soo ma fiiri, maxkamaddaan joogaa. jaamacadda waxbaan ka dhigaa. naadiga oo adabka iyo suugaanta muxaadaraan ka jeediyaa, cod baan ka ahay. idaacadda maalin walba waxaan ku leeyahay barnaamij baan ku leeyahay. tv-ga barnaamij baan ku leeyahay. joornaalka waxbaan ku qoraa. xaas iyo reer baan leeyahay, carruurtayda iyo xaaskaygii inaan waqti siiyo iyagana weyo aan maarata muhiimadooda siiyo, u adeego oo wixii aan soo qabana u qabto maalin walba, soo ma. intaasoo dhan oo shaqooyin aad khatiib jumcaan ahay, haddana jumcadii khudbaan akhriyaa. haye meeqa shaqo marka qofkaas haya? marka cimrigii saas cumrigii kaga faa'iidaysanaa. qofna cumrigiisii adduunyada waa soo galay, albaabkaanu ka soo galay, albaabkaanu ka baxay, 30 sano 40 sano 50 sano joogay, waxaba yaraatay raada male, saameyna male. dhinaca kale, youtube-ka waxaa ku jira waxyaabo fara badan oo laga faa'iidaysan karo. waqtigu waa imtixaan eeba kugu manaystay, waa dhigaal kuu dhigan, halkaa dhigtana ku dhigi doono. mustaqbalka faa'iido iyo khasaaro waxay ku noqotaba. fursadda keliya ee aad haysataa waa inaad hadda ka faa'iidaysataa waqtigaaga. waxaa kaloo la yaab ah, gabar iyo wiil oo hal iskuul wada dhigan jiray ayaa waxay kala noqdeen sidan. Question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, with all the kids, and look what has happened. I am so sorry to see Oh you. my goodness. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness. What's sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay. run ahaantii waxa uu dib u soo xasuustay waqtigii uu dayacay yaraantiisii. fadlan subscribe channelka mahadsanid.